maxaa ku dhacaa inta badan ragga markay wax furaan? Mawduucan waa mawduuc muhiim ah. Waxaan rajaynayaa furinku waa mid ka mid ah waayo aragnimada ugu adag ee qofka bini'aadamka ah uu maro. Laakiin marka aynu eegno dhinaca ragga, waxaa jira xaqiiqooyin badan oo ay dadku la aamusan yihiin. Inta badan bulshooyinku waxay diiradda saaraan dhibaatooyinka haweenka ka soo gaara furiinka, balse waxaa jira dhinaca kale oo murug leh, waa kan ragga. Maanta waxaan halkan ku eegi doonaa sida nolosha dhabta ah ee u saameyso iyo waxa ku dhaca ragga marka ay wax furaan. Marka ninku uu wax furo, inta badan dadku waxay u maleeyaan inuu xorriyad helay, inuu bilaabay nolol cusub, inuu faraxsan yahay. Laakiin xaqiiqda marka la eego nolosha ragga kadib furiinka, waxaa ka dhaca isbeddel xoog leh. Mid jireed ayaa dhaca, isbeddel nafsiyadeed ayaa dhaca, isbeddel weliba xagga bulshada ah ayaa dhaca. Cilmi baarisyo badan ayaa muujinaya in inta badan ragga ay la kulmaan dhibaatooyin caafimaad oo ay ka mid yihiin hurdo la'aan, walwal, miisaanka oo hoos u dhaca ama kordha, iyo niyad jab. Marka ninka uu lumiyo noloshiisii hore, macnaha uu wax furo, ma aha oo kaliya in uu lumiyey xiriir jacayl, balse wuxuu lumiyey sidoo kale oo lumiyey nidaam nololeed oo daryeeli jiray, dareen qoys, guri, waxaasoo dhan ayuu lumiyey. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ragga ku keena niyad jabka kadib furiinka waa kalinimada, iskaabulanimada soo gaar inuu dib ugu soo noqdo iskaabulanimadii. Rag badan ma laha inta badan sida dumarka oo kale shabakad xoogan, inta badan raggu ma laha, oo macnaha xiriiro badan inta badan raggu ma laha. Inta badan raggu ma helaan meel ay ku muujiyaan xanuunka iyo murugada, sababtoo ah nin inta badan cabaadaya, nin ooynaya, nin qaylinaya, nin cataawaya, haddii la arko sibaa macnaha dadku leeyihiin ninkan waa nin jilcan. Waxaa laga yaabaa marka in ay isku dayaan raggu inay awood muujiyaan, inay geesinimo muujiyaan, iyagoo laakiin sida xaqiiqda ah dagaal nafsi ah oo culus uu gudaha ka socdo. Ragga inta badan waxay bilaabaan furiinka kadib inay ka fakeraan inay fashilmeen, inay lumiyeen qayb ka mid ah naftoodii, inay noloshoodii mar kale aysan soo noqon doonin ama aysan ku noqon doonin sidii hore. Macnaha waxaasoo dhan ay raggu ka fakeraan marka ay wax furaan. Inuu dareemo ninku inuu fashilmay, inuu lumiyey qayb ka mid ah naftiisa, inuu dareemo in noloshiisa sidiisii hore aysan kusoo laabanayn. Waxaa sidoo kale jirta dhibaato dhinaca caafimaadka jirka. Ragga qaar waxay bilaabaan inay cunaan cunto xad dhaaf ah, stresska ayaa keenaya. Qaarkoodna waxay bilaabaan inay xataa cuntadii abateedkoodii u yaraado, oo cuntadii ay cunayeen ay soo yaraato, taasoo keenta marka miisaanka mararka qaar inuu lumo oo miisaankoodu hoos u dhaco ama uu caatoobo, ama in ay keento miisaankoodu inuu kordho oo ay cayilaan. Cayilkaas marka ma aha farxad ee waa stresska ayaa keenaya. Kuwo kalena waxaa laga yaabaa inay bilaabaan isticmaalka maandooriyaasha si ay u dejiyaan maskaxdooda. Waa dhacdaa inta badan nin marka uu wax furay noloshii ka dhacay, way dhacdaa. Sidoo kale waxaa jira xaalad nafsiyadeed sida hurdo la'aan qofka, ninka inay ku timaado, taasoo keenta maskaxda iyo jirka labaduba inay noqdaan kuwa daalan. Marka inta badan ragga wax fura dadku ma dareensana, laakiin dhibaatooyinkooda way jiraan. Haddana ma aha dhammaan ragga isku mid ma ahane. Waxaa jira qaar ragga ka mid ah furiinkaba waxay u arkaan fursad ay naftooda ku horumarin karaan. Waxaa laga yaabaa ragga qaar markay wax furaan inay sameeyaan jimicsi, cunto caafimaad leh inay cunaan, xirfado cusub, xiriiro cusub, waxyaabahaas oo dhan waxay u arkaan fursad inay ka baxeen nolol mugdi ah, inay kasoo baxeen nolol qurux badanna ay sii diyaarsanayaan. Furiinka marka haddii si wanaagsan loo fahmo wuxuu noqon karaa bilow cusub, sida raggan hadda aan sheegnay. Furiinka fursad buu u arkay. Sidoo kale haddii qofka uu ka murugooda iyo laftigeeda dhibaato kale ay ku noqonaysaa. Ugu dambeyntii waxa ugu muhiimsan ee ninku samayn kara marka uu wax furo waa inuusan noqon kaligiis. Kalinimada waa inuu iska ilaaliyo, waa inuu raadsadaa asxaab iyo meelo isku mashquuliyo. Furiinku ma aha dhamaadka nolosha, waa bog cusub oo u baahan in si xikmad leh loo fahmo. Ragga waa inay fahmaan in murugada aysan ka dhignayn daciifnimo, balse ay ka dhigan tahay inaad tahay bini aadan wax dareemi kara. macnaha haddii aad aragto haddii lagu arko adigoo wax furay haddana murugaysan macnaheedu ma inaadan bini aadan ahayn, bini aadan aad tahay. furiinka, qarashka, wax walbo qaabka u noolayd waad ka fakeri kartaa, waa ka murugoo kartaa. marka ma aha marka xigta ee aad maqasho nin wax furay
haddii aad maqasho hebel ayaa wax furay ha ku degdegin marka inaad dhahdo wallaahi way kuu ficneed inaad furinkan waba kuu ficnaaba, sababtoo ah ma ogid xaaladda uu dareemayo ma ogid. Sababtoo waxaa laga yaabaa in culays nafsi ah, mid jireed, intaba inuu haysto, mid caafimaad intaba inuu haysto. Marka hadhihin wallaahi furinkan waba kuu ficnaaba hadhihin. waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad wax badan ka faa'iiday. haddii muuqaalkani uu yahay muuqaal aad ku anfacay, like share muuqaalka, sidoo kale ha iloobin inaad subscribe saarto, commentigana noogu reebto faaladaada.